maqalkayga muuqaalkayga intii taqaan waa salaamaya waxaan ahaa feeriyaan qaran 1977 waxaan soo maray dagaallo fara badan oo aan ku difaacayay waddankayga oo aan waddamo kaleeto aan kula looltamayay markaas la aligeed waxaan la soo looltamay Kenya, Ethiopia, East Africa, Soomaaliya anoo magaceeda ku dagaalamaya waxaan u dagaalamayana inaan Soomaaliya magaceeda kor u qaado ayaan u dagaalamay magacayga ma ahayn ilaaha mahadle sharaf baan Soomaaliya u soo jeednay annaga iyo ciyaartoydii ila safnaaba لبدين سبيري عبد الله لبدين بروفيسور اللي بتقال لبدين سبيري ماشي على سدها ماشي على سبرينج وريق نسميه وريق waxaa ka mid ahaa ciyaartoydii la safnaa cali xasan xuseen cali freyser nin la dhihi jiray nuur caruun olow halyey la dhihi jiray cali xasan xuseen cali freyser nin la dhihi jiray iyo nuur caruun olow iyo aniga oo cabdullaahi maaradoon ah iyo nin kaleeto hadda magaciisa aan dhamay waxaan ahayn 4 nin oo horyaalka feerka dalka Soomaaliya ahayd waxaan qaadnay bariga iyo bartamaha Afrika ayaan qaadnay 1977 sumcad cajiib leh iyo sharaf baan u soo sheegnay madaxweynaha iyo dowladda kacaankana aad bay noogu mahadceliyeen sharafteena kor u qaaday marka dagaaladaas aan soo marnay sharaf baan ku soo marnay waxay ahaa nala dhihi jiray Soomaaliya
aarka africa ayaa noo dhihi jiray libaaxa africa ayaa ahayn soomaaliya magaceeda waxaan ka dhignay kor baanu usoo qaadnay marka annaguna waxaan ahayn dhalinyaradii markaas caaboonayo soo kacayo wadaniyiinta ahayd kabacdina haddee waa arkaynaa waxa haddana naga dambeeya inay iyagana soo kacaan oo meesha aan gaarsiinay ay kasii qaadaan baan jecel waxaan ku dhashay magaalada muqdisho waxaan kusoo barbaaray magaalada muqdisho dhalinyaradii magaalada muqdisho kusoo barbaartay ayaan kamid ahaa haddana waxaan ku noolahay wadanka maraykanka ku noolay US high school baan dhameeyey iskuol raago ogaas ayaan kasoo baxay kabacdina college baan ka galay wadanka maraykanka San Diego college baan galay aan college kasoo qaatay marka waxa waaye aniga markii aan feerka ka fariisanay 1977 madaxweynaha dalka Soomaaliya iyo Xuseen Kulmiye Afrax ayaa naga fariisiyey feerka naga joojiyey 77 kabacdi 77 waxaan sameynay 1982 waxaan sameeyey jim muqdisho ku yaala ayaan dadka ku tababari jiray tababaro badan baan soo sameeyey wuxuu u diyaar garaysan yahay inuu dagaalamo oo uu tuso isla mar ahaanta ardaydu sida habka difaaca dagaalka situationku markay nooca ay tahay wuxuu tusaya wadaadkiisa waa inuu dhisan yahay jirkiisii meel walibana go-an tahay taasoo ah ma ahayn raashin uu cunay ama ma ahayn cunno kale oo isaga dibad looga keenay tababar uu naftiisa u qaatay waxaan kasoo sameeyey jim kaleeto oo dalka Djibouti Apollo Club Bresnik meesha la yiraahdo ayaa haddana coach ka soo noqday waan soo baxay Hargeysaan imaaday waxaan ka sameeyey jim baan ka sameeyey iyada laftigeeda oo qalab baan geeyey anoo wadanka Maraykanka ka imaaday oo jimkaas aan ku saacideeyey dowladda Somaliland ayaan ku saacideeyey qalabkaas oo jimkaan uga tagay dadweynaha Somaliland oo dalkaygii aan ku soo noqday waxaan aad iyo aad idinku sheegayaa inaan inii wado qalab sports ah inaan inii wado inaan inii faa'iideeyo oo dhalinyarada soo kacaysa iyo kuwa kaleetaba aan waaweynba iyo kuwa yararka jiilka soo kacayba inaan wada faa'iideeyo oo xagga self defense-ga iyo xagga kickboxing-ka inaan aad u tababaro iyo tababaradii Soomaaliya aan haystay iyo tababarihii hadda aan dibadda ka soo qaatayba waxaan soo hamiyey in aanan tababarkayga la dhiman intaan wadamada ajnabiga jiro oo wadamadaas kala jiro inaan dadkaygii iyo dalkaygiiba uga faa'iideeyo tababarkayga oo aanan la dhiman ayaan u soo kacay dalkaygana waan jeclahay oo lafteen waana mahadsantihiin sidaad ii soo dhaweysan anigana sidaas isaga daran baan jeclahay waxaan ka sameeyey Puntland Boosaaso coach baan ka ah waxaan ka sameeyey dhalinyaro badan baan ka soo saaray Boosaaso gada waa ka soo sameeyey laftigeeda balad xaawo ciyaaraan ka sameeyey tababaro badan baan ka sameeyey marka ma aan dab yarayn haddana waxaan u diyaarsanahay international coach oo New York shahaadadii taalo oo aan New York inaan hadda shahaado international coach aan ku noqonayo aan kasoo qaataan waxaan waa sports waana sports nooca ugu fiican weeye
waa nooc sportis ah, waa nooc self defense ah, waa nooc healthy ah oo caafimaad ah, jirkaaga dhismayo oo da-daadi aan lagaa garanaynin inay wadaan hawshaas because annaguba waqtigaas ilaa waqtigaasaan soo nooleen ilaa haddana waa dhexdaan dhuuqsanaynayo waxaan kusoo adagnahay sportskeenii baana soo adkeeyey. marka dhalinyarada waxaan u sheegayaa inaad kaalintiina buuxisaan dhinaca boxkana in aad qaabishaan oo kaalintii aan ku jiri jirnay annaga aada buuxisaan baan idinku waaninayaa. tan kaleeto waxay tahay in anigu aanan idinka haraynin oo aanan dhalinyarada ka haraynin oo meel alle meeshii jim lagu sameynayaba aan jeclahay inaan tago oo aan ka dhiibto darsigayga aan ka bixiyo. waxaan u mahad celinayaa inta rag aan soo tababaray oo tababarkayga soo qaatay waa u mahad celinayaa. idinkuna dadka kale ee dhalinyarada kale sii tababara, coaches baa tihiin, sii shaqeeya idinkuna meesha aan idinkaga tagnay idinkuna kasii qaada. wallaahi horta dadkeygii waddankeygii iyo madaxweyneheyga dalka soomaaliya hadda jooga xasan sheekh maxamuud waa u mahad celinayaa, kulligooda dhan waa u mahad celinayaa, siiba xasan sheekh maxamuud waa u mahad celinayaa because wuxuu xasuustay ragga dhalinyarada sportiska cabdullaahi iyo raggii maandhaweyd uu ka hadlayay. madaxweynaha aada baan u dhageysanaynin, madaxweynahana aada u mahadsan yahay, niyaduu noo dhisay, dhalinyarada damboo yararkaana soo kacaysa wuu u dhisay because hadda annaga wuxuu noo qabtay iyo hadda maaragtay anigu aan ku jiro xataa dadka hadda aniga aan ku jiro ayuu madaxweynuhu magacaabay oo yiri dadkii horey magaca ugu lahaa soomaaliya waa in lasoo tixgeliyaa buu yiri madaxweynuhu. ninkii maxaanku irahdaa dhaqaalaha dalka waxa la taaban kara ka qabtay magac fiican ayuu soomaaliya la xiriiriyey. ninkii diblomaasiyadda caalamiga wax ku keenay sidoo kale wuu la xiriiriyey. ninkii maxaanku irahdaa cayaaraha iyo waxa mujtamaca dunida ku nool meel kastoo joogaba dhalinyarada ugu tiro badan waxa dhalinyaradu ay danaynayaan ninkii magaca soomaaliya ka dhex muujiyey ee maxaanku irahdaa magac uga keenay soomaaliyana waa nin wixii oo dhanba isku fuuqsaday. marka kow cabdullaahi waxaan leeyahay hambalyo, sidoo kale waxaan bogaadin iyo mahad celin u dirayaa isaga iyo intii soo garab istaagtayba. haddii raggii hore ee cayaaraha laga hadlay oo yacni wax ay yaqaanaan markay arkeen usoo istaagay waxaan leeyahay iyaguna waa mahadsan yihiin, aada iyo aad ayay umahadsan. hadday tahay jaamac karaaciin iyo hadday tahay cabdi bile iyo hadday tahay rag kaloo badan oo caawa halkan magacyadooda laga tiriyaba waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. madaxweynaha dalka iyaga xasan sheekh maxamuud mudane madaxweyne waa mahadsan tahay, waa mahadsan tahay 100% waan kaaga abaalaynaa sida aad dadka u soo maray halgamayaasha soomaaliya sportska sida aada noo qiimeysay mudane madaxweyne waa kaaga mahad celinaynaa. jiilka dambena waxay qaban doonaan shaqada aan soo qabanay sababtoy tahay maadaama adiga aadna soo qaado kor noo soo qaaday mudane madaxweyne kor allah ka yeelo. soomaaliya ha noolaato, ha israacdo soomaaliya. asalaamu calaykum waraxmatullahi.